fadhiga maanta ay isugu yimaadeen xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Cali Saciid Faqi. Ujeedada kulanka ayaa lagu sheegay inay tahay ka doodista iyo ansixinta sharciga miisaaniyadda 2020 oo horey ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. Kulanka maanta oo si weyn ugu duwanaa kulamadii hore ay xildhibaanadu waxay si weyn ay ugu doodeen qodobo dhowr oo qayb ka ahaa nuqulka miisaaniyadda loo soo gudbiyay. qodobka kamid ah xeeroosaadku wuxuu leeyahay in qoraal faahfaahsan uu raacsanaado miisaaniyadda. qoraal faahfaahsan oo hadda miisaaniyadda ka muuqdana ma jiro oo qiixayo miisaaniyadda cidamaane wareejinayso qaabkii kala bixinta ay u horeyso waxyaabahaas oo dhan canshuurooyinka iyo tiraafooyinka sida u jaango-an yihiin waxaasoo dhan ku cadda. teeda kale markii miisaaniyadda la fiiriyo madaxtooyada waxa ku xigo waxa ugu horeeyo oo ku xigsanayo wuxuu noqonaa baarlamaanka miisaaniyadiisii. marka wasiirka waxaan rajaynaynaa ayadan inuu noo faahfaahin doono qaabka uu kala gashay qaabka magsamayaa kabinti ahaan anoo soo dhaweynayo in golaha xildhibaanada ee sharafta leh inay ansixiyaan. waxaa jira golaha xukuumadda, waxaa jira golaha garsoorka. miisaaniyadda la sameynayana mar walba waxaa saami ku leh saddexdaas qaybood ee dowladdu ay ka kooban tahay. wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen oo isaga goobjoog ka ahaa kulanka maanta ayaa ka jawaabay su'aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka. marka korkaas uu taladayn waxyaabaha inta qoran inta badan waliba qiyaas waaye miisaaniyadda sanadkan waa talagal maaliyadeed talagalkaas marka waliba naga doonay mani oo lidiire ama meel raay qoosmo. codka oo ahaa mid farataag ah ayaa sharcigan waxaa ansixisay 84 mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya. hal mudane ayaa diiday, halna wuu ka aamus, halka hal mudane oo kalena aanan la ogeyn mowqifkiisa. natiijada codbixinta waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Dr. Cali Saciid Faqi. ansixisay oo afkashay miisaaniyadda. hal qof wuu diiday, hal qofna waa ka aamusay, qof labaad kalaa jiro oo aanan mowqifkiisa la ogeyn. marka sidaas ayuu maaragtay miisaaniyaddii ku ansaxday. Maxamed Ikhsir Jito, dalka TV, Baydhabo.